ra'iisul wasaaraha Greega Alexis Tsipras iyo madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku heshiiyey inay qaadaan tallaabooyin kor loogu qaadayo kalsoonida si loo fiicneeyo xiriirka. shir jaraa'id oo wadajir ah laguna qabtay magaalada Athens ayuu Tsipras kaga hadlay khilaafka Yurub ee xiriirka Turkiga oo hadda meel adag maraya. madaxweyne Erdogan ayaa ku baaqay xal waara oo laga gaaro jasiiradda kala qaybsan ee Qubrus. Senegal ayaa furtay garoon diyaaradeed oo cusub oo saldhig u noqonaya wadamada galbeedka Afrika. dawladda ayaa aaminsan halka ay ku taal Senegal inay u ogolaanayso inay isku xirto Yurub, Ameerika iyo qaaradda Afrika. garoonka ayaa marka hore u adeegaya 3 milyan sanadkii inkastoo ay jiraan qorshooyin lagu gaarsiinayo ilaa 10 milyan. furista garoonkan diyaaradaha ayaa 7 sanadood dib uga dhacday waqtigii loogu talagalay waxaana ku baxday 600 milyan oo dollarka Mareykanka ah. xiriiryaha guud ee Kenya ayaa sheegay in qorshaha mucaaradka ee lagu dhaarinayo hogaamiyahooda Raila Odinga caleemasaar kale oo madaxweyne uu ka dhigan yahay qiyaamo qaran. Mr. Odinga ayaa qaadacay doorashadii madaxweyne ee Oktoobar ee ku celiska ahayd taasi oo ku guuleystay madaxweynaha hadda talada haya Uhuru Kenyatta. wuxuu sheegay in la dhaarinayo maalinta Talaadada. wadamada Qatar iyo Faransiiska ayaa kala saxiixday heshiis military iyo ganacsi isugu jira oo ay ku baxayso 14 bilyan oo dollar. heshiiska ayaa Faransiiska looga arkaa in hawsha ay caadi tahay inkastoo Sacuudiga iyo isbahaysigooda ay xayiraad ku soo rogeen Qatar. Qatar ayaa lagu eedeeyay inay taageerto argagixisada taasina waa ay beenisay.